بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد الله حسن. waad mahadsan tahay fursadda tan inaan u helo oon ka sheego halka kan TV-ga caalamiga ee Royal TV International inaan fursad ay ii noqoto interview-gii ugu horreeyay laga qaaday oon niigu mahad celinayo. halka kadib aasaaska dawlad goboleedka kan cusub ee Saylac Lughaya State waxaanu ka soo shaqeynaynay muddo 8 bilood ah haddii aan dib u durugno waqtiga aqooniyaanka waxgaradka culimaadudiinka iyo haweenka gobolka Saylac Lughaya State oo ka kooban Saylac Lughaya Xariirad Heemaal Booq Abduqaadir Doon Jiri iyo Looya Cadaba intaasoo degmood duruufaha 22 sano oo hoos joogeen maamulka Hargeysa laga taliyo anagu u arkayno inuu waxba noo soo wadin darteed ayaa dhulkii duruufo adag oo baahi kamid tahay biyo li'i waxbarasho li'i caafimaad darri meeshii xarumihii caafimaadka oo aansan jirin haweenku inay marka ay dhalayaan ay geeriyoodaan nasiib darro annagoo joogno qarnigii 12aad 2012 waan ka gilgilanay haddaanu nahnay shacabka ka soo jeeda Saylac Lughaya State of Somalia. sidaa darteed waxaan walaalkay Xasanow bishii koobaad toddobadeedii annagu waxaan isugu imanay haddaanu nahnay culimaadiin waxgaradka iyo dhalinyarta iyo haweenka gobolada ka soo jeeda magaalada tan Oslo maalin sabti ay ahayd sidaan jeclahay telefoonana adduunka iyo caalamka conference ku yeelanay halkaas baan hoosta ka xariiqnay inaan gobolka aan ku dhawaaqno magaciisa uu yahay aniguna la ii doorto madaxweyne ku meel gaara oo magacayguna waxa weeye injineer Mahad Abiib Maxamuud dhalinyar anoo ayaa dalka kan imid waxna ku bartay noloshaydana ku samaystay waana u mahad celinayaa xukuumadda Norway in fursad ay siiyeen waxaan dhulka